صلى الله عليه وسلم وقارن مامورها اسكولك مامور حيانك معلمين شرفت له قيمه ardayda quruxda badan ee maanta hortayda ka muuqata dhammaantiin waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh salaamtii dib maanta farxad iyo sharaf ayay ii tahay inaan kala soo qayb galo xafladan quruxda badan ee maanta ay dhiganayaan fasalka sideedaad aad iyo aad ayaa ugu faraxsanahay sidoo kaleeto waxaan rabaa inaan halkaa ugu mahadceliyo fasalka sideedaad iyo masterkooda oo runtii ugu soo casuumay xafladan quruxda badan inaan ka soo qayb galo maamulka iskuulkana xoogga ayuu iska saaray wuuna igu adkeeyey wuxuu yidhi fasalka sideedaad waxay dhan ustaadka xafladda ka soo qayb galo iyo masterka iyo dhammaan iyo fasalkan waxaa idin leeyahay sida quruxda badan aad igu casuumteen xafladda ayaa anigana ugu soo qayb galay waa mahadsantihiin intaas kadib runtii maanta waa maalin qurux badan maanta waa maalintii fasalka sideedaad maanta waa maalin ay ugu duwan tahay fasalka sideedaad sababtoo ah waa maalin ay sugayeen inay arkaan maalin caynkan oo kaleenta ah waxaan rabaa inaan ardaydan dhaho waxbarashada sideedaba safar la galo waxaa ugu adag safar waxbarasho inta waxbarashada ku jirtaan waxaa la kulmaysan caqabad fara badan waxaan aaminsanahay fasalka sideedaad maanta heerkan ay soo gaadheen inaysan ku umaanin si fudud waxay u soo horeen waqti waxay u soo horeen lacag waxay u soo horeen hami taas ayaa waxay isugu gelisay in ay maanta heerkan ay soo gaadhaan sidoo kaleeto waxaa rabaa inaan ardayda u sheego markii wax la baranaayo weliba qaybta hoose markii la joogo tusaale fasalada koowaad lamaad saddexaad afaraad shanaad markii la joogo dhammaan ardayda waa tiro badan yihiin fasalkii waxaa laga yaabaa in lagu fadhiyo 60 50 40 in lagu fadhiyo laakiin mar kastoo kor la sii aado waxaa yaraanaya ardaydii sii gudbayso tusaalaha ugu fudud fasalka sideedaad waxaa laga yaabaa inay yihiin arday fara badan laakiin sanadka soo socdo ardayda u gudbayso fasalka fooman waxay noqonayaan ardaydii hore arday ka yar foom 2 loo gudbaa waa sii yaraanayaan foom 3 loo gudbaa waa sii yaraanayaan sababtoo ah waa marxalad adag u baahan waqti u baahan dadaal u baahan juhdi u baahan wax akhris bil'aadakana way necban yihiin dhibka markaasaa waxay leedahay ama wuxuu leeyahay ardayga waxbarasho ma rabi oo ka hara waxbarashadii oo ka hara waxaa laga yaabaa foom markaa gaartay in yar ardayda ay waxba ku qalin jibiyaan markii lagu gudbaa dala jaamacaddii sidoo kaleeto markaa jaamacaddii la tago sanadka ugu horeeya fasalka meel la fadhiista malan waa cadiiri ardayda aad iyo aad ayay u buuxaan laakiin semester marka loo gudbo arday ayaa baawarka ka dhacdo ha ugu dhacaan dhaqaale xumo ha ugu dhacaan dadaal xumo ha ugu dhacaan caafimaad daro intaba way ku soo wajahayaan laakiin waxaa la rabaa in loogu gudbo dadaal iyo juhdi inta waxbarashada ku jirto waxaa la kulmaya caqabad kasto waa xanuunsanaysaa waxaa leedahay waxaa laga yaabaa maanta haddii madaxa keliya ku xawna aad dhahdo war madaxa xanuun iskuul ma aadi kari lama rabo waxaa la rabaa hadda inaad bajaaj soo raacdo inaad baawur u soo raacdo ee daraasada aysan ku dhaafin imtixaanka inoosan ku dhaafin inaad fasalka casharka oosan ku dhaafin aad imaadaa ku dadaasho marka ardayda waxaa rabaa inaad kula dardaarmo oo keliya waxbarashada waa bilaabataa ee ma dhammaato waxbarashada fasalka ama dugsiga sare waxaa dhammeeyo qof u soo halgamay heer jaamacad waxaa gaaro qof u soo halgamay marka waxaan rajaynayaa sanado qurux badan inaan halkan kusii kulanno ardayda form 4 markay baxaan form 3 form 4 noqon doonto sanad kastoo la gaarana waxaa noqon doontaa qof sii horumaro aqliyan u horumaro maskaxiyan u horumarana fasalkii uu joogo inaa ka dalacdo laakiin waxaa rabaa fasalkii kaa dambeeyey waxaa ku baratay inaa xafido ugu dambeyn waxaan kusoo gabagabaynaa cilmiga nila baray oo macallimiinta idin bareen oo waalidka lacag idinka bixiyey idinkana aad dadaasheen si cilmigiina oo u barako cilmiga sii bixiya xaafadda waxaa jira maanta waddanka aan ku noolahay waa waddan iska dhibaato badan waa waddan waxbarashadiisa iska liidato dad fara badan waxbarashada awood adi maanta daa awoodo
wiil facaaga oo walaalka aan awoodin marka waxa aad barato waxa idinka codsanaa in lagu sadaqaysto dadka waxbarashada awoodin hada guriga caawo ama diriskaada aad wareysato iskuul ma dhigatiin maya intii awoodin ka gaarayso ana idin sidiga waxbarashada usi bilaw beeska qofka haduu taasigo dhisan ayuu iskuulkii imaanaa mid ogaan qofkaas noloshaad kuma iloobay inta fadhiso markasta waxaa xusnaa dadkii aniga waxaan soo baray waxaa xusnaa dadkii nagu dhiirgeliyo waxbarashada waxaa laga yaabaa inaad aan warshada qofkaas markuu yidhaha waxbaray dhahay waa nacay laakiin maanta waa jeclaaday marka ardayay waxbarashada shay qaali waaye waa maalin xafladeed waa maalin qurux badan waxaan dareemayaa inay dad fara badan iga dambeeyaan waxaan dareemayaa inay barnaamijyo qurux badan iga dambeeyaan waxaan ka helay ardayda barnaamijyada qurux badan ay soo jeedinayaan oo qiirada leh oo abuurka leh waxa waa aad iyo aad ayaa waxa ugu helay inta xafladda ka dhamaanaysana waan sii joogaa waxaan ka qayb qaadanaa aan ku raaxaysana aan dhegeysanaa fasalka sideedaad barnaamijyada quruxda badan barnaamijyada quruxda badan ay soo jeedinayaan ayaa maanta u jooga waxaan diyaar u ah inaan dhegeysto ayagana waxaan leeyahay ballantii aan galnay waad oofiseenay waa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu